على وجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي كسر هذا وأنت لو حنشرح هنا عشركي أها root calculation of electric bill. أنا قبله calculate كريو أما حسابيو electric أو guriga نوع جيران أما بدو دي أي شكل كorontadda. أوكي مركا فنيا أنا وحواي مركا قيب كميت أهواي electrical كميت أهواي مركا سنوصون هاي electrical كا ورقة وكل بحا electrical electrician electric bill. أوكي مركا هل كان معناتها إنه حنشرح هنا أصحابي تصالح guriga مركا جوتي وحواي سنوصون هاي وحلو ويدنا بشيء أو كلا كورنتو مركا كوب جوت أو كلا كورنتو بيل كلا ويدنا أو كورنتو مركا كورنتداas biilka qaabkay macna calculate ka mana silo xisaabina ama silo calculate gareena ayaan maanta halkaan ka barnaynaa waa qof kasta maanta engineer oo inuu yaqaana calculation kan waa must waaye waa basic qof kasta waxa waaye aduusan xisaabin karin korontooyinkii iyo wixii nalalkii iyo waxaas dhan xisaabin karin waa dhibaato waa taas marka waxa waaye maalmahan waxaan ashar hoog saarina insha Allah load calculation kii iyo electric marka waxa way house wiring kii iyo waxaas hoog saarina cashiradii kale waxa way PLC no sii socon doona insha Allah iyo cashir kale oo ku xisaabsan marka waxa way electronic qaabkii marka waxa way sin programming iyo software fara badan ayaa soo gali doona janaalkeena asxaabi waxa way ka taxnaada janaalka waxa aad doontiin cashir oo aad u fiican. Okay marka maanta halkaan topic-een waxa waaye mawduuceena waxa waaye maanta load calculation of electric bill sida loo xisaabinaa electric bill guriga marka joogtid waa soo ogsoonahay waxa lagu imaanaa markaasi korontooyinka lacagta korontada kan lagu markaasi qaasa marka waxa rabaa markaasi in la xisaabi karo ama wax isticmaashi unit ahaan ina ogaatid. Okay marka hore waxa jirto formula wax kasta door haduu formula yahay ama qaacido leeyahay waxa waaye dib malaha markaasi note kan yar wuxuu leeyahay markaasi total watt-kii isku darka watt-ka lagu dhuftay hour-kii ama saacadii yaa loo qeybinaa markaasi kilo hour. formuladan waa formula caam ah waaye oo intaan formula markaasi intaan dahaysid waxa waaye bas waaye marka waxa ku soo baxay markaasi unit ku soo baxayo unitka marka inta isticmaasho waaye kadib waxa leeyahay markaasi days ama day maalintii ama maalmaha انت استعماشي وحكوا فينا مركزي ريتك انت ديسك وحواي مركزي بيش تو حق مثلا السجال صدن ساسو سو مركزي مركا ريتك وحواي مركزي لعقتي او معناها او شركتك ورفنها انت سو مركزي يونت انت مركا يونت كو بحايو يونت انت استعماشي مركزي وحولي مركزي ساعد waxay keentay intaas unit sababtoo intaas unit markay ku keento waxa ku fiirin markaasi inta maalin isticmaashi مالك استعمال شو حوالي مكاتب تالي دايس وحوالي سونا كروتون وحوالي إيمانا مكاس بيش مكان دمات حساب قرينا. أوكي ريت كانوا حوالي مكاسي لعكت مكاسي شركة كورفونات شركة واحد سرعة شركة بسكون من مكاسي ودمنا بسكون من معه. أوكي for example أنا مكاسي for example كانوا حوالي مكاسي وحال كان وحوالي مكاسي حال كان محكي سنة مكاسي example لير وحوالي مكاسي لو أكون وات يا حال كان كي سنة مكاسي لو أكون وات تصال لو أكون ولا هيستا ساعدها مركو حوالي لو كن وات أنا استعمال شيء guriga لو كن وات استعمال شيء مركو وحلا يرى والعك يو لما تكون وات وحكي استعمال شيء من ساعات كاستعمال شيء مركزي 6 ساعات أي واحد استعمال شيء لما كن وات مركز خاب كي أو ما نقول 7 جرام مركزي أوكي solve solution مركزي وحلا يرى مركزي لو كن وات كا وحكوا فينا مركزي 5 كا وحكوا فينا مركزي حوار كي حكوا فينا مركزي وحكوا صوب حيو تمام كنا حكوا صوب عيش تمام كي يكون waxa uu qeybinaya markaasi kilowatt mana kilowatt ugu diray markaasi kilowatt-ki marka 10 kun kilowatt-ki kunka ah isku bixi 00 isku bixi 00 isku bixi 00 isku bixi 10 halka dhufo waa 10 unit waa markaas hadda waxa ku soo baxay unitka ku soo baxay. Okay unitka markuu ku soo baxay 10 unit isticmaashi waa 10 unit isticmaashi. Okay waxa ka whole monthly cost 10 unit waxa ku dhufanaya marka 13 days أما صدّن مالين بيشوا حوالي صدّن مالين واي صدّن بيشين حوالي أو مسلمين كم حاجة لمانة مركز 13 days. أوكي صدّن مالين صدّن كم مالين مركو حكوا حاسبنا كمان يونا صدّن حاسبنا حكوا صبايا صدّع بولا حكوا صبايا أما حد إكتاز 00 سوق قال صدّع حكوا فوا صدّع وإنت واي يونت واي مركزي. أوكي وحكوا فريم مركزي
bar rate ratio ku filan ama bar rate ka ku filan bar rate maxaa markaasay inta lacagta macnaha waxa way shirkadaas oo macnaha kula gareynayso ama shirkadaas ugu dhufanayso hadda wadanka waxaan joognaa markaas BD aan joognaa ama Bangladesh aan joognaa Bangladesh marka rate waxa waa wax lagu dhufanayo waa lacag aad u yar waa markaasay lix taka waa markaasay TK waxa waa taka waa markaasay lix taka lagu dhufanaa markaasay okay waxa la markaasay unitka total unitka soo baxay waxaan ku dhufanaa marka waxa waaye lixan ku dhufanaa markaasay waxa soo baxay markaasay kun 800 ay soo baxay oo taka ah bil markuu 800 markii loo fiirino waxa waaye lacagta oo macna ay shaqadii Bangladesh haddii loo bedelo macna lacag door ahaan loo bedelo waxa loo leeyahay markaasay $20 loo leeyahay markaasay $20 loo leeyahay kan waxa waaye marka example-kii koowaad waaye oo halkan kusoo sharaxnay haddana waxaan sharxinaa example kale aan sharxinaa oo kii oo ku duwan marka xoogaya dalo socod markaasay waxa la markaasay example of a home a guri kula if a home guri use isticmaalay following applying birthdays ma applying waxa waaye qalabyada ama documentii waa marka oo guriga maxaa kamid ah markaasay leerarkii waxa kamid ah marka fankii kamid ah marwaxadii kamid ah TV kamid ah yon friski ama iskala furniture kamid ah markaasay inta marka waxa waaye afar waxa ku guriga ku dhaga markaasay afar laambad afarta laambad waxa waaye markaasay 9 watt waa markaasay afartii laamb oo 9 watt ka ah 9 watt waxa waaye markaasay laambada tay waa badan yihiin laambada markaasay tan had isticmaalayso waxa waaye markaasay LED waa markaasay LED maxaa loo soo gaar markaasay light emitter diode waa kay bulbs oo mana oo laambada waxay ku kacday ama waxa ay kuran garaysaa light markaasay 10 hours macnaha waxa waaye afartan macnaha waxa waaye laambo 10 saac shidmeen la marka markaan ku soo gaabiyo okay two fan macnaha waxa waaye labo mar waxaad guriga ku haysan labadii mar waxaad waxa markaasay total code waxa waaye markaasay oo watt ka 60 watt waa markaasay waxay ina shidmeen markaasay 16 saacadood ay ku shidantay mar haddii guriga ku dhashay waxay shidantay 16 saacadood ay socotay markaasay intay shaqeynayso intaas ay ugu markaasay iyo guriga waxa ku jira markaasay TV na marka waxa total watt ka soo isku dar waxa waa markaasay 100 watt waa markaasay isna wuxuu ku shidnaa markii total garay 5 saacadood waa markaasay 5 saacadood ayaa 100 watt iyo ku noqday markaasay refrigerator marka ama furniture okay furniture waxa waa isna wuxuu isna total garantiis wuxuu noqday markaasay 200 markaasay لو بقول سوري لو بقول وات مركزي فرنجر كي بقول مركزي لو بقول وات ما عفوا لو كون وات مركزي زيرو حتى نقول لو كون وات فرنجر كي مركزي اوكي هل كان مركو حواي كل جرينا مركزي سولار لينا مركزي 4 او مرك افرتي وتا مركزي افرتي لامبو مركزي افر لامبو حكو فين مركزي انت ايش وات كي مركزي سال وحواي وات كو مركزي سال وات مركزي afar waxaan ku filan sagaal ku filan waxaan ku filan 10 oo hourkii uu socdo waxa ku soo baxay markaasay 360 watt hour waxa ku soo baxay hour ku soo baxay okay imaam markaasay fankii imaam mar waxad law markaas law waxa ku filan markaasay total watt ku filan markaasay 16 markaasay 60 waxa ku soo filan markaasay 16 ku filan markaasay 16 kii marka waxa waaye 60 kii law markaas waxa ku soo baxay markaasay 1920 watt hour ku soo baxay inta total inta saas markaas ku dhufan waxa ku soo markaasay waxa ku soo TV ku soo TV hal TV ku yahay markaasay halkii TV waxa ku filan markaasay total watt-kii oo 100 ka waxa ku soo filan markaasay 5 saacadood oo socday waxa ku soo baxay markaasay 500 watt oo hour ku soo baxay okay waliba waxa waaye solution oo socda marka nala socdo refrigerator-kii ama iskala freeze-kii asina waxa waaye wuxuu ismurugta markii loo sameeyay wuxuu gaaray 2000 iyo mana watt-kiis 2000 oo markaasay okay total watt marka isku dar intaana waa isku dar markaasay intaana isku dar waxay ku noqonayaan marka isku dartid waxay ku soo noqonayaan markaasay 4780 oo watt oo hours ah waa intaan total watt-ki waa markaasay okay total watt-ka marka soo haysto formuladii aad taqaan oo halkan ahayd waa ka intaas ku qoran tahay waxa la markaasay total watt-ka lagu dhuftay hours loo qeybiyay markaasay kilo hour-ki okay hadda aniga waxaan haysanaa markaasay watt hour waa haysanaa hadda inaan ku dhufan hour-ki ma baahan maxaa la markaasay waxa u bedelinaa markaasay kilo watt u bedel markaasay okay tiradan aan soo helnay markaasay 400 4780 ayaa waxaan u qeybinaa markaasay kilowatt u qeybi maxaa markaasay 1000 waay waxa la markaasay 00 isku bixi inta marka 478 waxa u qeybinaa markaasay 100 u qeybi waxa ku soo baxay tir of fraction ama jajab ku soo baxay waxa ku soo baxay markaasay 4.78 unit per day ku soo baxay markaasay okay inta marka isoo baahdo waxaan leenahay markaasay hadan soo maantani bishii ma qaba markaas bishii ma qaba kramata war bish waxa kramata 30 maalin waa markaasay 30kii maalin waxa ku dhufanay markaasay leedka soo hesho unitka soo hesho ma qaba markaasay 4.78
8 la socdo haddii mar haddii tirada bond halkaas ka marto looma akhriyo tira cad saxiix ama tira oo macnaha waxa waaye oo looma arkay marka waxa waaye sida adiga ama waxa loo akhriyo markaasi hal ayaa loo akhriyo waxa leeyahay markaasi 4 bondi 78 ma dhihi karo markaas 78 ma dhihi karo markaasi waa sharci xisaabeedku waaye marka la socdo okay waxa ku filan marka 13 days waa 30 maalin waxa ku soo baxay markaasi waxa ku soo baxay markaasi 443.4 ku soo baxay markaasi unit of monthly ahaan ku soo baxayso maxaa inta marka waxa ku soo baxay monthly inta marka ku noqotay maxaa leedahay markaasi rate ayaa u baahan tahay markaasi waxa leeyahay markaasi 443.4 ayaa waxa ku filan rate kana waxa waaye haddii wadan kasta isku mid ma ratekiisa wadankeena Soomaaliya oo kale sidoo shirkad kasta waxa waaye sida beeka oo kale shirkadooyin qaar macna waxa waaye sidoo waxa ku fanaan hijra oo kale tan afgooy ku taalo oo kale beeka waxa waaye muqdisho dhankan hadda afgooy iyo meel xarumo far badan ay ku leedahay waxa waaye sidoo mana ratekii uu fanaan isku mid maaha marka tayadana waa isku fiican yihiin markaan marka ratekiis rate BD oo kale Bangladesh oo kale waa 6 tag waa 6 tag waxa waa lacag aad u yar waxa waa lacag markii la fiiriyo 5,000 aan dhameen waay hadii maana la fiiriyo sababtoo waxa waa 20 tag waxa ay markaasi 5,000 amal ah marka 6 tag waxa waa lacag aad u yar waay markaasi oo runtii wadanka Bangladesh waxa la hadar electricity iyo internet iyo waxa oo aad raqiis u ah markaasi okay waxa ku filan markaasi lacagta waxa ku filan markaasi intaas 443 waxa ku filan marka 443.4 waxa ku filan markaasi lexa ku filan markaasi lexa maxaa markaasi lexda waxa markaasi rate oo macnaha waxa oo shirkadda oo lacag ugu filanayso markaasi ad intaas unit ku kanti inta totalka marka lexdaas ku filan waxa leedahay markaasi 443.4 waxa ku filan lexa ku filan waxa ku soo baxay markaasi 860.4 waxa ku soo baxay markaasi oo taka markaasi ama 86 iska markaasi 860 markaasi marka 860 markii oo loo gadi marka loo tadwiir gareeyo ama loo bedelo dollar ahaan waxay naqreen marka hadaan qaldanen waa $10 sababtoo ah $10 ay naqreen markii loo fiiriyo waa kunkii takaab marka waa $10 iyo xogaa waay marka 860 waxay naqreen markaasi $10 iyo xogaa marka waxa waa dareen kartaa lacag meesha soo baxday lacag aad u yar waa markaasi asxaabi halkaan maanta load calculation key of electric bill insha Allah asxaabi load kan uu socon doona power load iyo wax badan iyo marka load garan doona power factor ki wixii dhan iyo nidaamsan iyo habaysan oo cashir oo fiican soo diyaarin doona oo shorti ah oo aad u fahmi doonto insha Allah asxaabi ka soo dhawaada mar labaad waa waay asxaabi kanaalkeena Soomaaliya ka soo dhawaada aniga waa Asad Xasan Booy waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala